kulanti wanaagsan qodobada wararka Soomaali News ay idinkugu soo gudbin doono waxa qayb ka ah Villa Soomaaliya oo dejisay qorshe cusub oo ku wajahan Cali Guudlaawe hogaamiyaha Hirshabeelle hadaba muxuu yahay faahfaahin ku saabsan ayaa warka idinkugu soo gudbin doona kulan looga hadlay amniga dalka oo ka qayb galeen saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa ka socda qaramada Midoobay oo Muqdisho ka dhacay xiisada doorashada gobolka Gado oo korortay xilli guddiga ra'iisul wasaare Roble u magacaabay oo ka hor yimaadeen maamulka gobolka Gado iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Ruushka iyo Ukraine dagaaladii halkaasi ka socda oo xoogaystay ayaan warka ku faahfaahin doonaa daawadayaal ay u diyaar garooba markale kulan wacan oo wanaagsan waa habeenimo Arbaca sii baxaysa Khamiis ayaa soo galaysa taariikhda waa 2 bisha 3 2022 fadlan muuqaalkan haduu ku soo gaaro si share garay saaxiibada kalena si gaarsi bogeynana ku soo bir hadii aad ku cusubtahay si aad u hesho xogaha aynu halkaan ku baahino waa hagaag hadii aynu ku bilowno Villa Soomaaliya ayaa dejisay qorshe cusub oo ku wajahan Cali Guudlaawe hogaamiyaha maamulka Hirshabeelle madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxa uu ku wajahayaa xilligan cadaadis xoogan oo kaga imaanaya madaxtooyada Soomaaliya oo ku aadan in uusan liiska musharaxiinta xildhibaan ku soo darin xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi kursiga hoob 135 oo ku fadhisa Aamina ayaa lagu magac daray kursiga cadaaladda wuxuuna ka mid yahay kuraasta 12 kursi oo guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ay shaaciyeen maanta kuwa oo lagu dooran doono magaalada Beledweyne 8 ilaa 9 bishan aynu ku guda jirno hase yeeshee sida aynu xogta ku helnay waxa jira cabsi xoogan oo ku aadan inaysan xildhibaan Aamina kursigaasi way doonto iyadoo Villa Soomaaliya ay ka go'aantay inaysan dib u soo laaban dagaalka madaxtooyada ka dhanka Aamina ayaa ka dhashay cadaawad ay xildhibaanada u qaadeen sida ay u gashay dagaalkii cadaalad u raadinta Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar ka tirsan hay'adda NISO ilaa iyo hadda la ay muddo 8 bilood taas oo dilkeeda lagu eedeeyay saraakiil ka tirsan hay'adda NISA xildhibaanad Aamina ayaa Ikraan Tahliil ku matasha baarlamaanka kana soo jeeda beesha Gaaljecel ayaa muddooyinkii dambe loo hadal hayay kiiskan ayaana ah mid isha lagu wada hayay xogaha hoose ee helayno ayaana tilmaamay in haatan ay Villa Soomaaliya ay dejiso qorshe kasta oo kursigaasi lagu dhaafinayo xildhibaanada ayaa sidoo kale aad u dhaliili jirta madaxtooyada iyo hay'adda NISO oo ay ku eedeysay in Ikraan Tahliil Faarax gacantooda ku maqan tahay sida aynu ku ogaanay Villa Soomaaliya ayaa kursigan u rabto Cumar Faaruq Cusmaan oo ah xoghayaha ururka Nusaj ee suxufiyiinta Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee beesha Gaaljecel ee kursigaasi lagu matalay gobolka Hiiraan ayaana la rumaysan yahay in 100% la garab taagan yahay xildhibaanada inay mar kale soo matasho 4 sano ee soo socoto xildhibaanada aqoon-yahano iyo siyaasiyiin badan ayaa kaga digay Cali Guudlaawe hogaamiyaha maamulka Hirshabeelle inuu kursigaasi shakhsi kale u xiran isla markaana uu mar kale ku soo saaro xildhibaanad Aamin oo taageero fara badan ka haysata shacabka Soomaaliyeed iyo beesheedaba sida ay dad badan qabaan Cali Guudlaawe Xuseen haduu kursigaasi ay dhaafiyo xildhibaanada waxa qayb ka noqon doona dadka cadaalad darrada ku sameeyay qoyska Ikraan Tahliil Faarax Villa Soomaaliya ayaa xilligan cadaadiska ugu badnaa ku saaraysa Cali Guudlaawe inuu sanadkan ka reebo tartanka xildhibaanad Aamina Maxamed Shaysan uga soo noqon baarlamaanka 11 ee dalka su'aasha ilaa iyo hadda dad badan isweydiinayaan ayaa ah Cali Guudlaawe ma ku safaran doona sumcadiisa raali ahaanshaha Villa Soomaaliya oo iyada doonayso inay soo noqon Aamino Cali Guudlaawe Xuseen ayaana ku soo saaray shakhsiyaad badan oo Villa Soomaaliya aysan la doonayn xilka xildhibaannimo balse waxay dadku ku tilmaamaan inuu yahay hogaamiyaha dhexdhexaadka ka doorashada xilligan soona saaray xildhibaano aragti kala duwan loo xisbiyo kala duwan ka socda oo dalka ah markaana taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sareeya Gaas Cabdi Xasan Xijaar iyo saraakiil uu hogaaminaya oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta shir la qaatay wakiilka xogayaha guud ee qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna madaxa howlgalka kaalmaynta qaramada Midoobay ee Soomaaliya UNOSOM James Iswaan iyo saraakiil ka tirsan xafiiskiisa kulankan ayaa looga hadlay dhamaystirka xoojinta sugidda amniga doorashooyinka dalka iyadoo ciidamada geesiyaasha ee booliska Soomaaliyeed lagu bogaadiyo guusha ay ka xaqiijiyeen sugidda amniga deegaanada doorashooyinka ay ka dhaceen iyo Muqdishoba waxayna mar kale ku baaqeen in la sii laba jibaaro adkeynta amniga dalka maadaama ay dhiman tahay qaar ka mid ah xildhibaanada doorashadooda iyo tiid madaxtinimo iyo doorashada gudoomiyaasha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar ayaa la wadaaga xogayaha guud ee qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya arrimaha la aadan sugitaanka amniga iyo sidoo kale qodobada muhiimka ah xilligan in laga garab istaago ciidamada Soomaaliyeed ee booliska amniga gaar ah sugaya ay u baahan yihiin markaana waxa mar kale cirka isku shareertay xiisada ka taagan doorashada 16 kursi ee deegaan doorashadooda ay tahay gobolka Gada si gaar ah Garbaharey
gudoomiyaha maamulka gobolka Gado Axmed Bulle Garaad oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda Gado iyo tallaabada uu ra'iisul wasaare Roble oo guddi ugu xil saaray arrinta doorashada ee gobolkaasi. Axmed Bulle ayaa ka hor yimid guddiga ra'iisul wasaare Roble u magacaabay inay ka soo tala bixiyaan doorashada inay ka dhici karto magaalada Garbaharey. Gudoomiyaha ayaana ku dooday inay doorashada ay leedahay 3 guddi oo wada shaqeeyo. Garaad ayaa sidoo kale su'aal ka keenay doorka gudoomiyaha guddiga loo magacaabo Abukato Cumar Dhagey maadaama uusan qayb ka ahayn guddiga doorashooyinka dalka. Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Gado ayaa shaaca ka qaaday in mas'uuliyad darro kasta oo ka timaada doorashada Garbaharey inuu ra'iisul wasaare Roble oo madaxa saaran doono. Gado waxaa ka taagan muran xooggan oo hareeyay kuraasta taala magaalada Garbaharey kadib markii Jubbaland ay ku dhawaaqday in doorasho halkaasi ka dhici karin isla markaana loo baahan yahay in deegaan doorashadeeda labaad ay ka wareejiso si doorashada waqtiga ugu dambeeya loo asteeyay aysan dib uga dhicin. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhawaan guddi u magacaabay xaaladda gobolka Gado si gaar magaalada Garbaharey iyo habka doorasho lagu qaban karo maadaama doodo badan ay ku gadaaman yihiin. Guddiga ra'iisul wasaare Roble magacaabay oo dooda xooggan uu ka keenay maamulka gobolka Gado ayaana maanta gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Mas'uuliyiin kala duwan oo madaxweynaha Jubbaland uu qayb ka yahay ayuu kulamo la qaadan doonaan waana waxa ay mas'uuliyiinta gobolka Gado durbadaba qayladhaanta xooggan uga soo baxday. Toddobaad gudahood ayaana jawaab rasmi ah looga sugayaa in laga tashado doorashada Garbaharey oo goobo kale loo wareejiyo iyo in lagu qaban karo guddigan uu ra'iisul wasaare Roble u magacaabay arrintaasi. Guddiga doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa goor sii horreysay ka dhawaajiyay haddii aan xal rasmi ah loo keenin doorashada 16 kursi ee Garbaharey inay ka socon doonaan isla markaana dib loo dhigi doonin doorashada madaxda ugu sarreysa ee dalka ay la dooranayo. 15 bishan aynu ku guda jirno ayaana qorshuhu yahay in lagu soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo shirkii ugu dambeeyay golaha wada tashiga qaranka oo aalada fogaan aragga ka qabsoomay la isku raacay. Madaxda maamul goboleedyada dalka iyo xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa xilligan lagu eedeynaya boobkii ugu weynaa oo ay ku hayaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka maadaama iyaga shakhsiyaad daacad ay ku soo saaranayaan. Markaana dagaalkii Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya ayaa marba marka ka dambaysa si xoogaysanaya isagoona galay maalintii 7aad. Ciidamada Ruushka ayaa laga soo daadiyay diyaarado maanta Arbaca waxayna caga dhigteen inta badan magaalooyinka ku yaala bariga Ukraine. Xaaladda ayaa marba marka ka dambaysa ka sii daraysa waxaana dagaal xooggan maalintii 7aad uu ka socday gudaha dalkaasi. Caasimadda dalkaasi Kyiv ayaa qayb ka ah goobaha xilligan ee ciidamada Ruushka ay kaabiga ku hayaan waxaana aad lagu eedeeyay ciidamada Ruushka inay adeegsadeen gantaalo suna oo saameyn weyn yeeshay oo dad badan ay ku dhinteen. Dowladda dhankeeda Turkiga ayaa ku baaqaysay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Ruushka ay ku soo qaaday Ukraine waxayna ku cambaareeyeen tilaabada uu qaadayo dalkaasi. Dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ayaa dhankiisa ka dhawaajiyay inay sii kordhin doonaan cunaqabataynta ay saareen hogaamiyaha ugu yeereen Kaliistaliska ee Ruushka hogaamiye Putin. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaana sheegay in sida ay moodayeen Ruushka aysan noqon Ukraine isla markaana khasaaro xooggan lagu gaarsiiyay waa sidoo hadalka u dhigay. Inkastoo ay jiraan baaqyo ku gadaamay sidii loo joojin lahaa dagaalka dalka Ukraine ka holcayo oo Ruushka weerarka ku soo qaaday haddana ma jirto tilaabo cadeynayso inuu Ruushka dagaalkaasi joojinayo ilaa hadafka ah uu leeyahay inuu dalkaasi qabsado ma ahane. Inta ayaan ku soo gabagabeynaa qiyaaray timinta wararka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News mid la mid inta ku kulmi doona waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo. Fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaro sii share garay saaxiibadada kale sii gaarsi boggeennana ku soo biirsi aad u hesho xogaha inuu halkan ku baahino mahadsanideen.